Filimkan wuxuu ku bilaabanayaa dadkan saaxiriinta oo gabadh yar soo qafaashay. Saaxiriintanu waa kuwo magaalada xoog ku haysta. Waxay qaadayaan codadka xayawaanada oo kale ah. Duqdan weyn waa mid meesha iyadoo shayaadiinta ugu weyn ka ah meesha. Kana waa saaxirka ka weyn. Saaxirka ugu weyn midkaan saaxirka labaad weeye. Habartanu waa mid ugu weyn, ninkan bay kicinaysaa. Waxay u sheegaysaa inuu gabadha yarta istaajiyo. Kadibna waxay leedahay soo bixi wali oo ku jiro dhiig dadeed. Kadibna ayada ayuu u dhiibayaa. Dhiigga waxay siinaysaa gabadha yarta. Gabadha yarta waa mid diidaysa, laakiin waa lagu qasbayaa. Afka markay gelisay gabadhu waa mid sii wadi weynaysa. Gabadhu aad bay u dhibsanaysaa, wayna ku qoslayaan, aad ba ayay ugu farxayeen. Gabadhu waa mid iska tufaysa dhiiggii afka ku galay. Duqdu waxay soo qaadaysaa shayaadiinta faraanti yar oo shaydaannimo ah. Gacanta ayay gabadha u gelinaysaa si ay gabadhu uga mid noqoto shayaadiinta. Midka weyna saaxirka u jadbaynayaa, isagoo ku faraxsan gabadha yarta oo inay ka mid noqoto xerta shayaadiinta. Habarta weyne shayaadiinta waxbay akhrinaysaa. Waxay u yeelaysaa midii weynada shayaadiinta ahayd ee gabadha meesha keentay, kana soo waday xaafadoodii. Waxayna u sheegaysaa in wejigii koowaad lagu guulaystay. Waxay u sheegaysaa inay hadda ka mid tahay shayaadiinta. Mar kalena way eegaysaa midii gabadha keentay. Kii weyna saaxirka wuu farxayaa, duqdi sidoo kale way farxaysaa. Dhammaantood gabadha ayay soo wada eegayaan. Habarta shayaadiinta waxay sheegaysaa in xaaladdu ay wax walba caadi yihiin. Gabadhana gurigeeda ayaa lagu celinayaa. Habartan waa midii saaxirta ah ee gabadha soo qafaalatay. Gaariga wuxuu uga damayaa gabadha aabaheed gurigiisa hortiisa. Ninkan waa mid duqda ku xanaaqaya maadaama meesha uu ka leexan lahaa ay gaariga ku damisatay. Iyadana gaariga oo ka cila. Maxaa meesha ku keenay buu leeyahay. Iyaduna way xanaaqaysaa, waxay leedahay maxaa kaa quseeyay wadada miyaad leedahay. Sidoo wuxuu leeyahay meesha waan meeshan ka leexanaya. Iyaduna waxay leedahay maxaa iga quseeyay. Gurigay horteeda ka wareeg buu leeyahay mar kale. Habartan waa shaydaan, waana midda gabadhiisii u geysay shayaadiinta. Isagu suma ogo, iyaduna ma ogo inuu gabadha aabaheed yahay. Way u digaysaa mar kale, wayna u hanjabaysaa, waxay leedahay waad arki doontaa maxaase ninka ku dhici doono. Bal la soco fiidiyowga. Gaariga uu kacayaa markaan, wayna ka dhaqaaqaysaa. Ninka asagoo xanaaqsan buu leexan doonaa meesha. Ninkan waxa ku dhaca bil la dhowr. Ninkan gaarigiisa ayuu baakin gashanayaa, kadibna gurigiisa u galayaa. Qolkiisa caadiga ah jiifku tagayaa. Balaayo aan la aqoon baa ninka uleynaysa. Ama garanayo wax uusan arkayn baa uleynaya. Meelaha iska eegaya wuu yaaban yahay, wuu is xogayaa.
ul baa ku dhacaysa. Habartii shayaadiinta hadda u hanjabaysa ayaa ninkii ku soo laabatay. ninkii qamiiskii buu tuurtay, ka bacdina waa kaasaa dhinaca mar iska riixaya. ninka wuu istuuray. balaayo aan la garanin baa dilaysa. hadda ninkii naftu way ka dhacday. sidaas ayuuna ku ahaaday. gabadha yartahay shayaadiinta ku biirtay, wiil baa wuxuu ka qaadanayaa bahal yar ku ciyaaraysa, wuuna u diidayaa. waa uu ka xoog badan yahay, waana u dhibayaa. aad buu u dhibayaa. wuu u diidayaa, wuuna ku dhibaataynayaa, wuuna ka xoog badan yahay. rafaad buu u geysanayaa. mar kale islaantii saaxirta ahayd bay u wacaysaa oo iyada gacanta ku haysatay. wayna ku dacweynaysaa. u sheegaysaa cunugan dhibka uu geystay iyo waxa uu geystay uga sheekaynaysaa. duqdii shayaadiinta way soo kaxaysay. maxaa ka rabtay bay leedahay gabadhayda. isna wuxuu leeyahay waxba kuma samayn, maxaaba la ciyaar keliya. ma ka arsanaysa leedahay bay ku leedahay. fiiri bay leedahay, labadiisii indhood eeg bay leedahay. labadiisii indhigoo toos u eeg bay leedahay, meel kale ha eegin. indhaha u saar bay leedahay. gabadhan waa mid indhihiidu isbedelayaan. wiilkiina wuxuu noqonayaa digaag. hal diiq buu noqonayaa. halkan gaari waxa u day gabadha hooyadeed. waxay is arkayaan gabadh kale saaxiibteed ah. jidka darteed bay soo goynaysaa, wayna is salaamayaan. aad bay isu marxabeynayaan. dadaan muddo is arkin. wax walba waa caadi bay leeyihiin. aad bay isugu farxayaan. laakiin maxaa ku dhici doona midda madow? maxaa ku dhici doona? bal eeg, musiibo ayaa ku dhici doonta. aad bay isu marxabeeyeen. way kala tegayaan. waxaa ku dhacaa bal eeg, gaarigaas baa ku dhacaya. wuu dardarayaa, wuu dhufanayaa, gaariga wuu tuurayaa. tii kale way naxaysaa. haddana gaari kala dardanaya. midkaas weyn baa u dhammaynaya. laba cad bay noqonaysaa. gabadha yarad halkan bay taagan tahay. kuwii shayaadiinta ahaayna halkan bay ku ciyaarayaan. iyada laakiin way ka baqanaysaa. gadaal bay ka taagan tahay. duuqdii weyneed ee shayaadiinta ahayd baa qudboynaysa. waxay uga sheekaynaysaa wixii magaalada ka samayn lahaayeen. waxay kicinaysaa odaygii weynaay oo saaxirka ahaa. waxayna leedahay waxa bilaha soo socda aan samayn doona sheeg. sideen shaqooyinku u qaban doonaa bay leedahay. maxaa la samayn doonaa? wuxuu leeyahay waxaan noqon doonaa bisado. noocaas aan ku shaqaysan doonaa. meel walba oo gelayna waxaan ku gelaynaa inagoo bisada ah. gurigula bisadanin baan ku gelaynaa. duqdii aad bay ugu yaabaysaa. waxayna leedahay hadalkaagu waa sax.
kuwo kalena waa kuwo iyagun u marxabeynaya. Duqdu aad bay isula yaabaysaa maadaama ninkan uu ka sheekeynayo waxyaabo kale, maadaama iyadu ay meesha ka tahay amiirad. Gabadha yartaahid waa mar kale loo yeerayaa. Gabadha yartaa ayaa lagu akhrinayaa markaa, laakiin gabadha yartaa maxaa ku dhici doona? Markaan gabadhu ma ka faka doontaa mise way raaci doontaa? Wax ayaa gabadha loo akhrinayaa, wejigana waa laga marinayaa si shayaadiinta loogu dudiyo, shayaadiin kalena loogu yeero. Maxaa dhici doona? La soco qaybta xigta.